Sheekh Nuur Sheekh Cismaan Sheekh Cabdullaahi Qudubi oo ah imaamka masjidka Xamarweyne ayaa maanta maruu telefishinka Star TV la hadlayay waxa uu ka hadlay qiimaha uu leeyahay bisha Ramadaan iyo sidoo kale waxa uu madaxda dawladda federaalka Soomaaliya uu ka codsaday in la taakuleeyo dadka masaakiinta ee barakacayaasha ee ku sugan gudaha magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda. Sheekha ayaa sheegay in bishan ay tahay bishii la isgarab qabanayay dadkana la taakuleen jiray waxa uuna ganacsatada cid walba oo lacag haysata ka codsaday in dadka masaakiinta la garab istaago. waa kan Sheekh Nuur Cismaan oo ka hadlaya xaal iska raba dadka barakacayaasha oo meelaha kaamamka ay joogo danyarta in hoos loo fiiriyo dadka mas'uuliyiinta ee dadka dawladda dadka ganacsatada inay il gooni ah ku fiiriyaan oo waxa way ay u tagaan oo soo booqdaan oo ogaadaan waayo waxa laga yaabaa adigoo waxoogaa bariiskaaga iska haysta oo suxuurtii iyo afurkiiba helaysa laakiin qof baahan oo sakaraada inuu dhinaca dariskaaga ugu joogo marka inaad fiirisid baa laga rabaa oo dadka mas'uuliyiinta ay booqdaan xarumaha kaamamka dadka danyarta ay joogaan inay soo booqdaan ummadda Nabi Maxamed waxa walaalo lagu yahay in waxa way la soo tacaadufo ilaahay baa loo wada baahan yahay dad maanta dadka aqniyada iyo kuwa fuqarada kulligood ilaahay baa gacmaha loo wada horsanayo loo sooman yahay haddana qofku wax kala dheer yahay waa inuu saaciido kaalmeeyo oo dadka danyarta hoos loo fiiriyo insha Allah taala dadka mas'uuliyiinta iyo madaxda iyo waxaan leenahay qof walbo adduunyada waad ka safraysaa waxaad hormarsatid baana ku anfacaysee dadka danyarta la gacan qabto sida xadiiska rasuulkeen way cadeynayso habeen la yiraahdo Laylatul Qadri oo kun khayr min 1000 shahr oo Ilaahay ku tilmaamay ayaa dhexdeeda ku jira habeenka baa la soo dejiyay quraanka kariimka isagoo jumla kadibna waxa la soo dejinaya suuradii aayad marka fadligaas badan bay Ramadaantu leedahay Ilaahayna subhanahu wa ta'ala wuxuu aayad kale ku leeyahay ya ayyuhalladhina aamanu kutiba alaykumus siyaamu kama kutiba alal ladina min qablikum sida dadkii idinka horeeyay ummadihii idinka horeeyay Ilaahay ugu waajib yeelay ayaa idinkana waajib la idinkaga dhigay sooma bisha Ramadaan buu yiri Allah subhanahu wa ta'ala oo 69 ummadda Nabi Maxamed ka horeysay ummad walba way soo soomi jirtay innagana sidii oo kale ayaa mashruucna looga dhigay inaynu soonno marka bishaas barakaysan oo Ramadaan oo nabigu uu ku tilmaamay shahrul rahma bishii raxmadda bishii maghfirada bishii cidqum min an-naar saddexda qaybood inay ka kooban tahay tobanka u horeysa ay tahay tobanka raxmada tobanka ku xigtana maghfira ay tahay tobanka u dambeysana cidqum min an-naar ay tahay waa tobanka naarta la iska xoreeyo saddexda qaybood bay ka kooban tahay iyada oo dhanba waa maalmo yar oo kooban oo Ilaahay uu leeyahay subhanahu wa ta'ala ayaaman macduudatin waa maalmo yar oo kooban oo la tiriyo kow laba ayaa la leeyahay iyadoo dhamaatay baa durba arkaysaan marka walaalayaal waxa la iska rabaa bishaas inaynu ka faa'iideysano khayrka badan in quraan akhriski la badiyo dhikrigi la badiyo sadaqadii la badiyo wax la sadaqaysto oo idcaamu dacaam ويدعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا بإله قرآنك وكله سبحانه وتعالى dadka muuminiinta in la dacaam siiyo oo la afuriyo oo qofka qaniga ah oo waxaysta Ilaahay u waxsiiyo subhanahu wa ta'ala inuu u kaalmeeyo dadka fuqarada iyo masaakiinta uu waxsiiyo oo aadan hammi una ka gelin hadaad aragtid meel makhaayid ka furan tahay meel dad masoomayaal ay joogan inaad u soo sheegto dadkaas meesha mas'uulka ka oo si wadajir looga hortago waayo waxa way fasaad iyo dhib bay keenayaan wax waajib Ilaahay gudan waayay inay dadkeeni halayaan oo dhaqankeeni dooriyaana wax wanaagsan ma aha marka insha Allah ta'ala waxaan isfaraynaa in cibaadada Ilaahay lagu dadaalo dadka qaarkood waxay sameeyeen qiyaamul leelka salaada taraawiixda 10 habeen oo horeysay intay soo camiraan bay 10 kale ka seexdaan marka inaan saar la sameeynin oo xiisaha u horeeya dadka ayna la tagin habeen walba waxa way cibaadada si toos ah loo sameeyo nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay عمل midka ugu khayr badan adwamuha waa midka la daa'imo la joogteeyo hadaad marna tukato marna iska dayso dib baa ka imaanaya marka waxa la iska rabaa in khayrka la daa'imiyo taraawiixda la daa'imiyo xilli walba lagu dadaalo insha Allah ta'ala waxaan isu dardaarmaynaa sadaqo iyo infaaq dadka in la nafaqeeyo taniya markii ay soo gashay bisha barakaysan ee Ramadaan ayaa waxa inta badan ay culimada Soomaaliyeed ay u soo jeediyaan dadka muxaadarooyin ku saabsan fadliga ay leedahay bisha barakaysan ee Ramadaan waxaana leenahay Ilaahay hay naga dhigo kuwii bisha barakaysan ka faa'iideysta khayrkeeda badan Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed Faradheere Star TV magaalada Muqdisho